barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeennii kobciye iyo cashir cinwaankiisu yahay qurux aan jirin. qof walba inaga mida wuxuu leeyahay qaab uu nolosha u wajaho. qaar ayaa nolosha ku wajaha aqoontooda, qaar ayaa ku wajaha nolosha dabeecadooda wanaagsan, qaarna waxay ku wajahaan oo baasaboor u ah quruxdooda. waxaa la isku waafaqsan yahay in quruxdu tahay wax dadkoo dhammi u wada ordayaan raadinteeda. qof walbaana uu jecel yahay inuu qaab wanaagsan dadka uga soo hor muuqdo, kaasoo siinaya kalsooni uu ku qabo naftiisa. xadiis ka sugnaaday nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu ahaa inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal. macnihiisu yahay allah waa mid qurxoon oo quruxdana jecel. tirakoobyada qaarkood ayaa sheegay in 10kii sano u dambeeyay qaliinada isqurxinta ay siyaadeen 700 boqolkiiba. 2011 oo kaliya 15 milyan oo qof ayaa isku sameeyay qaliino isku qurxinayaan. adduunkana waxaa kusoo badanaya dhakhaatiirta loo ogol yahay inay sameeyaan qaliinadaas, oo ilaa haddana waxaa haysta shati ay ku shaqayn karaan wax kor u dhaafaya 20,000 oo dhakhtar ah. 2023 kaliya waxaa ku baxay qaliinada isqurxinta lacag gaaraysa 40 bilyan oo dollar. quruxdu ma wax dad gaara leeyihiinba, mise waa mid dadku u siman yahay oo qof walba ilaahay qayb ka siiyey? quruxdu ma mid muuqaalka wejiga iyo midabka maqaarkiisa uu yahay oo kaliya, mise intaas ka guda balaaran tahay? allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim, oo macnaheedu yahay waxaan ku abuuray dadka muuqaal toosan. quruxdu way ka guda balaaran tahay kana macno weyn tahay sida dad badan u fahamsan yihiin ee ah in wejiga qofka iyo midabka maqaarkiisa iyo waxyaabaha soo raacee muuqaal kore uun tahay. quruxdu waa mid gaarsiisan ruuxda qofka, dadnimadiisa, dhaqankiisa iyo weliba cilmigiisa, taas ayaana ka xoogan midda muuqaalka bannaanka ah. quruxda ka muuqata jirka qofka iyo muuqaalka wejigiisa xataa layskuma waafaqsana, oo dadku isku aragti kama wada ahan. qofba sibaa la qurxoon. kuwii madoobaa waxay raadinayaan midab furan oo maariin ah, kuwii kale maariinka ahaana waxay raadinayaan midab cad, halka kuwii caddaana qoraxda intay isku dhigaan raadinayaan midab maariin ah. hayso midabkaaga oo allah ku siiyey, asagaas ayaad ku sharfan tahay oo aan suuqa laga soo helaynin. sida midabka Soomaalidu u badan tahay, suuqana ma yaallo, lacagna laguma helo. ku dhaganoo midabkaaga, asagaas ayaad sharaf ku leedahay. quruxda bannaanka ruuxa ka muuqata ma lahan raangiis, mana sii jirayso weligeed. markastoo qofku da'diisa weynaato way sii yaraataa. sidaa daraaddeed waxaa xoogga la saaraa dadkana lagu qiimeeyaa marka horeba waxyaabaha raangiiska leh sida aqoonta, diinta, dadnimada iyo dhaqan wanaagga. ma og tahay in dumarka ka qayb galaya tartanka boqorada quruxda adduunka ay samaystaan qaliimo ay isku qurxinayaan, oo waxay ku tartamayaan qurux aysan lahayn oo bug ah? waa qurux aan jirin midda aad ka raadisay wax ka baxsan wixii allah kugu manaystay. waa kalsooni xumo soo gashay naftaada, waa caafimaad darri aad u soo jiiday jirkaaga. gabar ayaa ii sheegtay inay Muqdisho tagtay iyada oo ka timid jaamacad dalka banaankiisa ah oo ay wax ku soo baranaysay. waxay la kulantay gabdho aad isugu hawla arrimaha bedelidda jirka ayagoo raadinaya qurux. markaasaa la yidhi, weli ma sidaadii ayaa tahay heblaayo oo ismaadan caddayn miyaa? waxaan ku moodnay inaad tahay jaamiciyad ilbax ah. waxay isku xirayaan ilbaxnimadii iyo bedeliddii jirka, oo allah qur-aankiisa ku sheegay in shaydaan ballan ku qaaday inuu dadka u qurxin doono bedelka jirkooda. qofkii shaydaan xigta ka dhigtaa oo alle sokodiina si cad inuu u khasaaray ayaa rabbi sheegay, sida suuradda nisaa aayadeeda 119 ku timid.
walaal, quruxda oo laga raadiyaa qalliin iyo dawooyin kiimiko ah oo gubaya jirkaaga ma ahan horumar, ma ahan ilbaxnimo iyo karti aad dadka dheer tahay toona, ee waa cudur ama xanuun ku haya oo aad ka aamintay naftaada liidnaan iyo hooseyn. waxaadna u baahan tahay in si nafsaani ah lagu daweeyo. ma ogtahay dhegaystow in raadinta caddaantu tahay duulaan maskaxeed uu inagaga tagay gumaystihii oo isu muujin jiray inuu midabkiisa cad ka sarreeyo midabka kale sida caddaan xigeenka iyo maariinka iyo madowga, taasoo keentay in qaar badan oo naga mida uu ka dhaadhaco duulaan maskaxeedka, isla markaana aaminaan in laga fadli badan yahay lagana wanaagsan yahay. dadkaas waxaa ka khaldan miisaanka fiicnaanta, waayo Allah ayaa inoo sheegay ruuxa agtiisa karaamada iyo sharaf kale uu yahay midka isaga ka cabsado oo keliya oo xuduudiisa ilaaliya. sidoo kalena nebiga ayaa sheegay inaan waxaan alle ka cabsi aanan ahayn aanay dadku kala sarrayn, carab iyo cajanba. waxyaabaha keenay in maanta dadku aad u qiimeeyaan muuqaalka bannaanka iyo caddaanta waxaa ka mid ah xayeysiin laga sii daynayo tviyada oo soo bandhigaya xayeysiino waxyaabaha la marsado qaarkood, kuwaasoo loo xayeysiinayo qaab qofka maskaxdiisa bedelaya, sida kareem ay soo saartay shirkadda caanka ah ee Nivea oo ay ku xayeysiisay ereyga ah white is beauty, oo macnihiisu yahay caddaantu waa daahirnimo ama nadaafad. waxay kaloo sameeyeen xayeysiis kaloo ah inay keeneen nin madow ah oo wata weji boombila ah, weji caag laga sameeyey macnaha, tintiisuna furfuran tahay aadna u badan tahay, markaasay kusoo qoreen Revitalize yourself oo macnaheedu tahay ilbaxnimadaada dib u soo cesho ama ilbaxnimada naftaada u soo celi. yacni markaad marsato waxyaabahaas adoo madoobaad dib u dhac ayaad ka badbaadaysaa oo ilbaxnimaad helaysaa. cajiib. iyo xayeysiimo kale oo fara badan oo aan waqtiga xalaqada ogolaanayn inaan soo wada ururino oo dhammaan ka hadlaya qaarka jirka iyo siduu isu furfurayo hadba heer una tagayo haddaad adeegsato alaabo kala duwan oo bedelaya jirka. maalin kasta siday waxaas indhaheen u qabanayeen, dhagaheennana ugu soo dhacayeen, ayaan ka agguurnay kalsoonida nafteenna aan ku qabnay iyo ku qanacsanaantii aan ku qanacsanayn quruxda asalka ah ee Allahna siiyey. markaasaan u dhaganuglaanay waxaana lagu shubayay oo aan waxba ka jirin, danna moodnay qurux aan jirin ee bug ah. ma iibsan lahayd alaab aan ahayn sidii loo soo sameeyey ama aan asal ahayn oo aan original ku qornayn? jawaabtu waa maya. oo waxaad dhihi lahayd waxaan waa bug, ma waa laygu khiyaamayaa oo asal maahan, soo sidaa maahan. waxaanad aadi lahayd shayga asalka ah ee aan la doorin ama samayntiisii hore say ahayd aan waxba laga bedelin. hagaag dhagaysto, ka waran haddii aad adiguba tahay bug ama quruxdaadu midaan asal ahayn ay tahay oo aan dhab ahaan u jirin, oo ay ku tiirsan tahay maadooyin kiimika ah, oo ay dhici karta in maalmaha ka mid ah si kadisa suuqa looga waayo ama la joojiyo soo dhoofintiisa amaba xataa samayntiisa laga gudbo. haddii aad hadda weydiiso dhammaan dadkii hore u isticmaalay dawooyinka kiimikada ee jirkoodii bedelay inay haddii waqtigu dib u noqdo sidaan samayn lahaayeen, waxay kulligood ku jawaabayaan ma samayn lahayn sidan, mana bedeleen jirkayga haddaan ogahay in dhibkan iga qabsan doono. oogada olasha, isxoqid, yaraanta unugyada cusub ee maqaarka u dhalanaya, qoraxda loo dul qaadan karin, maqaarkoo miin yeesha qofkii oo dhalinyar iyo kuwo kaloo badan. Allah ayaan kugu dhaarshay waxaasoo dhibma waxaad naftaada u marinaysaa si aad u hesho qurux aan asal ahayn oo bug ah. dhibaatada kale ayaa ah in qofku jirkiisa u baabi'iyo ama isu dhalaan rogo dadka aawadiis. dad fara badan ayaa u bedelay jirkooda hadal dad kale aawadiis, ama ammaan iyo hal lagu dhaho way shidan tahay ama wuu shidan yahay ama way maraysaa wallaahi quruxda ay dishay iyo hadallada la midka ah. sidee yahay marka aad dadka ka maqasho ereyadaas oo aad hubto in caddaantan ama quruxdan lagu sheegay aanu hibo alle kuu siin, asalna aynan kuu ahayn oo ay bug tahay? sidee yahay gudahaagu? maxaad dareemaysaa oo hoos iska tiraahdaa? qofka oraahda dadka aawadeed naftiisa halista u geliyey, waxaan weydiinayaa su-aal: aaway shakhsiyadaadii? aaway dadnimadaadii?
miyaadan ahayn noole allaah gaar u sameeyey islamarkaana ku manaystay waxyaabo badan oo wanaag ah kuwaas uu kaga soocan yahay in badanoo noolaha dunida saaran ah. sidee qof laga yaabo inuu rabo dhibkuu ku dhacay oo kale inuu kugu rido hadalkiisa u dhagaysanaysaa? Soomaalida ayaa tidhaahda buul gubtay ku kale kama naxo. qurux dhab ahi waa diin, qurux dhab ahi waa aqoon, qurux dhab ahi waa akhlaaq, qurux dhab ahi waa kalsooni nafta lagu qabo. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.